بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا استعين على أمور الدنيا والدين صلى الله على سيدنا وعلى آله وصحبه. waxaan insha Allah safar ugu bixi doonaa Muqdisho. Safarkaas oo aan filayo waxa laga hadli doonaa inay tahay mustaqbalka Soomaaliya iyo xilliga kala guurka 2016 waxay ku dambeyn doonto. Ilaahay baan ka baryaynaa inuu maslaxadana waafajiyo. Waxa kulli Soomaali ka dhaxaysa laakiin waxa uu naani dardaarankayga asalka noqon lahaa in baasha guud la fiiriyo xogaa danaha gaarka iyo masaalixda shakhsiga inta laga saaro inaan madalada guud la fiiriyo iyo Soomaaliya maanta sidii marxaladda kaga gudbi lahayd. Soomaaliya waqti adag bay maraysaa, marxalad dheer bay soo martay. Waqti maanta ay ka fiican tahay 2012 bay hadda joogtaa. Waxay u baahan tahay in horay loo sii dhaqaajiyo oo maantana balwaji ka fiican oo 2020 marxalad ka bedelan ay gasho. marka wixii aan la soo kulanana insha Allah waan idin sheegi doonaa hadii Ilaahay yiraahdo. Waxaan mid labaad rabaa inaan u hambaliyeeyo doorashada sida nadiifta ee deganaanshaha ku dhacday amniga Djibouti iyo ku soo noqoshada Ismaaciil Umar Geelo oo mar labaad ku soo noqday kursiga. waan u hambaliyeynaa, waan u tahniyadeynayaa. waxaan leeyahay reer Djibouti midnimada ilaaliya, midnimo la'aan iyo khilaaf annaga dilootay, annaga dhibaatadeeda garanayna. maanta idinku waxaad haysaan ma garanaysaan, annaga idin garanayna. midnimadiina iyo walaalnimadiina iyo ilaaliya isku duubnidiina iyo inaad adeecdaan hoggaankiina oo aad had iyo jeer wixii macruufa ku adeecdaan. aad baad u mahadsantahay.